warfaafinta ayuu wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ah. اوكي وحتى الهالس قاس كاها يروحوا هاي محمد قعمر ديري او اها نيكي وزيرك ورفافته لو مغعابay xilligii Cali Mahdi Soomaa saas aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka awooto uu soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waaga tirada Muqdisho ka shaqeey jiray marka shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa badinaad wariyaasha Soomaaliyeed dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqay horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ee ka koobanto dhanaa meesha joogtay wax wariye oo dadkana qabana ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweyna joogay dad diraa joogay kullu wala joogay meesha marka inta Soomaali ee ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan garin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihi asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda oo aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebaneen asagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa masnin iskay wuxuu ahaa wardiiska taariikh nolol macnaha intaad ka taqaano oo meesha ka barata asiga absalan wallahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga horuma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dawladda gacanka kadibna qorigaan aan qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeedo ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal la caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah naxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas madax idaacadda TV raadiyo Muqdisho waxa madax ka ah tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadiyo TV ma jirin amalena ma shaqeeyeen TV howlgabo ah marka waxaan rabaa dadka Soomaali inaa wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed haddii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarad markaas magaalada ka qaxay u dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantii aan sheegto hatta qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labaad ku cilna xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed way nin waliba reer caruur haysta way inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa inaad xusuustaada intaad ka barato intii yareed oo taqiin intaad ka barato bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barato inaad noo taabato adoo maasan دي عدالة أو ما أنت قلت الله متر أسوقي سعيد بنا آدنا وأنا متقنا كبقى أما في حشرة مجلس قفك حقيقة أنا قدي هو إذا كل شيء أداة دم بأمة كجشيد وأنا نولا مكاس عن لأني ونكاس أمة على قبض لك هذا الكوار أيوب جيستي نكني مركو شغالي أساس أقوم من المي وحال وحري نلي عبد الشيعالي أسقبو يقانا الله يرحمه عبد الشيعالي معناها هو شغال نجعلوها مركا maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacmo dheere asigan waa ilaalo ku soo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadi Muqdisho ka mid noqday Soomaa wiil okay waaxda la shaqeynay waaxda raadi Muqdisho la shaqeynay teebeed qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa insha Allah waxaan rabnaa wixii sayta u kala dhigno mogta ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saara ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdi Shiicali Allah u naxariistee xogaa ina soo dhawaado jacalaas mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdi Shiicali soo dhaw bravo Cabdi Shiicali bravo Cabdi Shiicali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdi Shiicali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa Allah yarxamo okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raaci jiray asaga markii dambe u dhiibay dhowr program uu yiri bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinayna Cabdi Shiicali ninkan soo saaray kadib Cabdi Shiicali wuxuu ku shabadeeyay inuu yahay nin daarood waan Arab Maxamed Saalax عرب محمد صالح وحنا كل شيء بدي إنه دارو ذي
daarood waayu dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doona mustaqbalka macnaha hadalkaas adiga ma taagna markuu lahaa saad ku ha ogaatay ha hadalkaas waa joogno anagoo joogno oo wakaaladda wararka joogno marka ninkan mustaqbalkan waxaan u qaadanay mustaqbalka in uu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabdi jacel la dhihi doono ninkan ayaa kaa aktifsan ninkaana ku wareejina meesha saas u haysteen marka adig markuu hadalaas dhihi jiray annaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka aktifsanaan doonaa wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa wuu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yey laakiin nagu soo noqon doonaa cabdisal waa kusoo noqotay maasinta waa soo noqotay cabdisal cabdisal waa soo noqotay maasin tahay marka waa ka xumahay qadkiisa xoogaa ciladaa kusoo baxday insha allah laakiin qadka wuu iska hagaajin doonaa insha allah cabdisalaam waa ninka markhaatiga nool oo hadda lahayo oo weliba dadka si wanaagsan u yaqiino goobjoog ka ahaa la soo shaqeeyey taariikhda uu soo sheegi doon insha allah uu nagu soo noqon doonaa cabdisalaam insha allah sidaas kusoo noqon doona qadka kusoo noqon doona dhibaato malaha balse intaan noo soo noqonaya cabdisalaam waxaan jeclaan lahayn bal inaan waraysi xasaasiya laba waraysi uu bixiyey laakiin mid kamid aan soo qaadanay waa mid uu ku qirinaayo inuu ahaa wariye inuu ahaa oo maanta bixiyey waraysigaasaan rabnaa bal inaan dhegeysano wax yar waa isku soo noqonaynaa cabdisalaam waa soo noqotay braawo cabdisalaam aad iyo aad waa maasan tahay waa soo noqotay cabdisalaam waa jeclaan lahaa inaha braawo allah ciise waa soo noqotay cabdisalaam marka waxaa ka wadaa markaas tartan inuu meesha ka jiri doono halkaas iyo wad marka ka soco halkaas marka ninkan waxaan u malaynaya inuu tartan geli doono uu cabdi sheekh cali booska asaga lagaga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana allah yaraxmo oo la yidhaahdo abukar wariye la dhihi jiro asagana oo dhallinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iskaa nin dhallinyara iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yidhaahdo shiiqaal waa gart kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar aa la dhihi jira abukar yare abukar wariya inta badan ay dhihi jireen soo marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhallinyaradaasuu raacay kadib wuu soo noqday abukaraa noo yimid mahad allah yaraxmo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad caddaa la dhihi jiray iikaadi hega waalin waxaan jeclaa marka hore inagu socodso kii oo la shaqan jiray magaciisa muxuu ahaa kan waxaa tiri abukar wariye waa cabdi shiiqaalaa tiri shiiqaal waa wiilkaas carab saalax uu ahaa kanina wuxuu ahaa abukar ka kale magaciisa tiri igwaani kakood carab saalax kana ii sheeg cabdi sheekh cali cabdi sheekh cali wuxuu ahaa ninka wariyaha qaybta barnaamijka ganacsiga ganacsiga u qaabilsan raadi muqdisho okay kaas waa carab saalax waxaan jeclaa nin walba qabiilkiisa inaan insha allah xataa laftiisa aan xusno u kaadi marka kaas labadaas waxay ahaayeen cabdi sheekh cali iyo abukar wariye labadaas shaqaali carab saalax ahaayeen labadu marka waxay ka shaqaynayeen waa ninkan okay hore ugu soco marka haye raadi muqdisho ay ka shaqaynayeen mahad aadan xasan nin la yidhaahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska asagana mahad aadan xasan la dhihi jiray mahad aadan xasan haye oo asna ahaa ogaadeen oo ka soo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos ula shaqeynayeen laftooda sooma may ulama shaqeynayeen macnaha raggaas wuu calaamaysta rag u calaamaysta waa ma fahamtay asaa calaamadaystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas sooma aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayey markaas waxaan taagannahay meel la yidhahdo wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona annagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayey hebel baa xag kaga soo tegey hebel baa xagga kusoo arkay waxaasuu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynayo marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tegey uu dhulkaas kasoo warramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsada asagana uu dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin la yidhahdo maxamed cali xaange allah yaraxma asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka samayn jiray
oo xaqiiqatan xaangi taariikh dheer gadaalan ka geli doonaa marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax afartood hal subax uu dilay waxaa tiri cabdi sheekh oo carab maxamed saalaxa abubakar wariye oo shaqaale mahad aadan oo ah ogaadeen iyo maxamed cali xaangi oo ahaa nin ma jarteen waa هادي أفرتاس هل صبح يوصلت ماشي مستوى عدير أو بدي يدل كاسون في متقنا أو برا مستوى عدوى شقية مستوى عدير ما فهم أفرتاس مستوى عسو كدري أيه ماشي مستوى والله قري ماشي عسو كدري الله يرحمه وحاكوسو هنين عبد القادر علي يدلي وهانين حوالله سجنا سوق مرك عبد القادر علي يدلي عبد القادر علي يدلي وأنا حوالله سفع أيه أوكي كانوا لمبر شناضوا وعرّا مرك ديلكس ودعين إنا نوصل شناضوا ديلكس ودعين إلا وحن مقتل لفت العاوة وحن نجلس دون هم ضدنا نجلسين الصوماليات قالوا بيجوان مرك وعرّا إنا بصراحة قالوا من أول بسوا دلي يتعرضوا دي حاسس تعرض حاسسته يصابتوا يو حلوا دلي يقتل الكردونا حالات وقت سوى وقت حالات حنتهاي مرك إن شاء الله كنا قبل إن شاء الله ما صار هرتا ninkani markii ugu horeysay aroor hore waxa shaqada soo galay ninka liira Allah naxariistay mahad aadan xasan mahad cabde ma xasuusta taariikhda waa abriil ayay ahayd 8 meelahaas ay ahayd 2009 abriil waa 1991 abriil 1991 hore u socay marka mahad ayaa aroorta hore shaqada soo galay 8 barka meelahaas ay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fariistay haye mahad uu gacanta qabsaday meeshaas uu la galay marka dhalinyaro marka meesha taagnaa noo sheegtay annaga waxaan soo galnay 10kii waxaa la yiri mahad saak xafiiska ma uusan furin dhalinyarada irid taagnaa la taagneed oo dibadii la taagnaayeen waa gartay taakiya uu ku jiray bas marka mahad la waayay oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shak yaraa bilowday mahad ma laabanine shaqo u soo kalahay xaguu ka baxay haye kadib abukar wariye haddana soo galay abukar wariye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa musawicuu la galaa meesha kore meesha musawicuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa gartay wuxuu dilay maa dilay abukar wariye dilay waa hal subax waa bisha waa abriil 91 haye horu socod kadib aniga iyo waxaa nimid Allah yarxamo oo ila seexday habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha Soomaaliga waa gartay marka barnaamijyo far badan uu sameyn jiray Allah yarxamo xaangi markii dagaalada dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yiri niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn laba mitir ay sugayso marka barnaamij sameeyeen wuxuu dhigi jiray aniga asaga ama umad kale aan la sameeyay wuxuu dhigi jiray heesta aad ku soo qatimaysid Cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed caliga waa gartay cirka dheer dhulka dheer heesta soo saari jiray ma fahamtay waa gartay marka maxamed cali xaangi waa jooga subax asasna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yiri wasaaradda boostada ayaa report ka jira dhaashana Allah u naxariistay ay yiri Cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas report nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta waxa laga qabanaya shaqo xagga report nooga soo qaado waa gartay waa laabtay xaanga marka meesha ugu tagay laan wasaaraddu dhex jooga intaasoo boqol oo shaqaale dhex jooga marka cabsi kama qabo soo معناه هو دارتك الوارسنا مركا أدو لفتها وحاوي أمني جيستنا مربى بحكوجة ترجعش والله صعطة يعني مربى كوريسا سمعنا كود شقينا ها نيكي سمعنا كود شقينا وهالميلا وصوت قلنا هذا مركا بحين جوريجا وتغنا جوريجا كود نولنا هاي مركا حنج عن عبسي كما قبل أنتوا أنا إلجوا وح عبسين كما قبل ما فهمت واقرت هاي أنتوا وزارة الجوجنا وحاسلين أنت صوب مليون وشغالة وده جوجا بروبلم مرة عايز ما فهمت واقرت على كل حال
ninkii hadduu alla ku idmaayo waxaa xitaa ilaahay badbaadiyey nin la yiraahdo cabdirasaaq xirsi xasan oo isagana majarteen ahaa iyo gabar iyadana meesha ka shaqayn jirtay rag ayaa la qabsaday cabdirasaaq ayo oo inuu kaxaystay rabay cabdirasaaq xirsi xasan oo majarteen ahaa ninkii هذا على كل حال يعني هذا كان اسكو ملغنين على كل رجي مركو أفرتاس كسو تقصلوسي أيو هرت حانجي عبد الشيء علي ومركز دكنا كبي أيو أصول لابت واقرت مركز سيدي حوار مو وضعنا ذك معناها وحن ربا صادق هذا دعسو حسن أفهم ربا ذك هذا دعسان أفهمان لكن ذك يوم أنا قف مع مرة وضعنا وحب جسنا ماشي كره مصوع كدوش وجينا وسودلا رصاصة صلا مغلمة ماشي صوما ماشي رادي مقدشو صور رصاصة لا مغلمة سيكون دعي كرتا إن قف أنت لوطو للديلو بيتكلم هذا لوطو للديلو وحرب بدينا بالسريح بالموضوع سيتا بالموضوع شكت بس أنا اللي ماشي كيمدي هرت صرت مصوع عم الله فولا يا جنجال كوي مثل قصو قالوا هوستيل ماشي دلا ما فهم markii irida ganjaalka laga galo wasaaradda raabinta waa taqaan waxay ka soo horjeed ciidanka booliska ka soo horjeeday meel maqaayad meel oo cafeteria shaah laga cabo shaqaalaha ka cabaanay lahayd shaqaalaha ganjaal yara ku dhaganaa oo musawac laga galo sarkaas laga galo musawac ilaa waa ganjaal lahayd marka ganjaalkaas uu la galay meel barxad oo meesha isla meesha ay ku toogto ma faham waa gar marka hadduu alla ku idmaayo ninkii sidaas ayuu horta maxamed cali ninkan la yiraahdo mahad iyo abukar wuxuu ka helay ganjaalka gudaha ma soo gelin ba ma fahmto waa gart oo qof ogaan karta ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay waay rasaasta deed aan soo la maqal ma cabdisalaan see ku dhacday rasaasta ma rasaas de wadankii waa iska USC waagas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmeynin mid kale ninkan afsaaro kaga dhigay degdeg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga taqalusay okay markii la goorma ogaad doontii marka adigu goorma ogaad doontii ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqana saaxiibka la cunay saad sheegayso ninka ah maxamed cali xaangiye ugu dambe la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimo soo galay marka 10 soo galay Allah ya raxmad dhaashane ayaa irid iga hor yimid meesha barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhaaniyo orod carar wasaaradda waxaa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xango ila socday xango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fariisto dhalinyarada iska sii sheekayso waa ku soo laabana xaggan tagaa markaas uu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax waa kaga soo baxay xaggaasaan tagay marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilku waqti u dhacay soo laabatay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabaa ilaa adduunyada dhegeysanaysa wixii inaan dhabta inaan wixii dhabtiisa si ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali idlahan allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageeyey iyo rag far badan meeshii walaacayo qalqalina shaqaale far badan iska dab wareega meesha ugu imid iyo oday la yiraahdo cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda ma nool yihiin ragraalo dadkaas hadda ma nool yihiin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas marqaatiga nool ahaa wax ma ka nool yihiin ma noo magacaabi kartaa xilligan taariikhdaas wuxuu dhaceen dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysi u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kala allah raxmo hadduusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taagana wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay subaxaasan sheegaan subax dhib ka dhacaya dadka jooga u baahanahay oo si aan u la xiriirno aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka keliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yiraahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasan ka hadda aan kuu sheegay wuu joogay hadda ma inkastoo maqal fiilan ayagu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii ila shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd
oo aan rabna haddii aan xasuusteeda inaad xasuustaas insha allah bal inaad ku noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin lidhaha injineer cabdullaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitir dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yiraahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdi shii cali ayuurani iyo nakaan oo dhahay cabdi shii cali lagu dareemay inuu labadii kala waayey saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiil oo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabteen ay jiidayaan ayuu cabdi shii cali indhaha saaray siduu cabdi shii cali sheega allah yarxam intuusan dhiman cabdi shii cali ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan oo ku soo yaacay war ninka xagee u daa markaasuu dhaa war ninkaan iyo mataqaana dhexdeena ka baxay hubaysay markaas ninkaan hubaysay qorigu wataa ma qorigu wataa wiil oo kale la socotay cabdi shii cali wuu qalqalay markaasuu dhaa war ninka xaanku hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu asagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdi sheekh doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhoweyd ku soo yaacayeen xabadihii uu qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdi shii cali markaas u dambeey uu sii jiiday afartooda markaasaa raxdooda loogu tegay meesha afartooda hal maal afartooda marka ma hal maala la duugay aaskaas ku dhacay xaggee lagu duugay adigoo maasan horta waa arrin muhiima saa ii weydiisay ninkii isla markii gasgas nin la yiraahdo generaal gasgas inaad taqaana jeclahay cusmaan gasgas taliya-xigeenka ciidanka booliisku ahaaye ayaa markaasi meesha marayey oo xeradiis sii gelayay meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda laisku dagaalayo laisku buuqayo asaga ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraana la yiri waxaa la yiri raggaan oo shaqaalaha ka tirsan ayaa meesha meydkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyey kiiska wuu inkiray isla markii wuu cararay meeluu galaa la waayey saaxiibadiisa gaariga dabada usoo marka gasgas meesha wuxuu yiri kiiskan waa la baarayaa xeridiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yirahdo allah yarxam uu dhintay gentleman inaad taqaana male oday siyaasi ahaa jiray si fiican kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu gudbeeyey nimankii markii xoogaa gabalkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meedadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha oo ma la aasin meeshii ku daadiyeen way ka soo tageen meydkaas yaa qaaday oo kusoo baabuurta intu ku qaaday meydkii jidka soddon kusoo daadina taas bal ii xaqiiji waxaa kusoo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irinta taagnayd okay oo raadiyaa haystay waa fahmay waa beesha Saleymaan waa haye wax ma ka xasuustaa dadka saas weegas xilligaas meesha ka shaqeynayay oo asiga la shaqeynayay wallahi waa ciidan waxaan waa USC ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asagaa naga soo dhex galay asagiina soo dhex galanana wuxuu noo soo dhex galay problemkaan ma fahamta waa gad asiga hore shaqaale dowlad muu aha hore muusuu shaqeeyey suu noo sheegay macallin iskuul BB baa ahaan jiru nagu dhex macallin BB na hayo kiro okay aye marka dilkaasu waxay noqdeen marka saa ishat afar wuxuu dilay Cabdirashiid wuxuu dilaa tiri ninka la yiraahdo Cabdirashiid oo ah Carab Maxamed Saalax wuxuu dilay Abuukar Wariye oo shaqaalaha mahad aadan oo ahaa asigana ogaadeen waxa uu dilay maxamed cali xaangi oo ahaa majarteen afartaas wuu dilay waxaan rabaa marka cabdiqaadir cali iile iyo cabdisaaq xirsi ayuu ma ka fakadeen see wax u dhaceen malaayig bal noo xaqiijisay ninka leeyahay cabdiqaadir cali iile iyo xawaalaha iyo cabdisaaq xirsi xasan cabdiqaadir cali iile allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo muqdisho ahaa markaas ka hor uu ahaan jiray xilaa dowladda gacanta xataa u ahaa waa fahmay cabdiqaadir cali iidle wuxuu taagnaa wasaaradda warfaafinta meesha laga galo waa taqaanaa meel yar oo shub ah ku aadan maaragtay oo balkoon camal abaal shub ah marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah soma marka shubkaasuu taagnaa ninkanina
gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yiri waa xanuunsanahay lacag yar oo gunno ah oo la yidhaha farmashiyaha kaga soo iibsa camal haye lacagtii marka waxay ku socotay nin la yidhahda cali baay oo ahaan jira ninka faaladii u qori jira oo markaas ahaa u qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa garta marka waxaa la yidhi warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel mise 1 milyan wax saas ahayd markaas la yidhi orod cali baay ula tab kala ka qaada lacagtan haye ya asaa ula tagaa ها تاكي مركو wuxuu u yimid cali baay wuxuu ku dhahay lacagtan baa wasiirka ii soo qoray si waa maalin kale yaa markaas ma aha maalinta uu raggan dilay ma oo ninkii asoo u kaadib cabdisalaam ayda baltay arrin kale xumaan mushkil kale ninkii asoo dadka laayay ayuu hadana dhex joogaa dadkii miya oo wasaaradii wali ka shaqeynaa oo dadkii uu laayay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta asigoo laayay hadana ka dhex shaqeynaa miya oo ka dhex shaqeynaa oo waliba ilaaladii wasiirka yaa wali oo ilaalada wasiirkaas magaciisa ku cilmi barnaamijka kale kula maqnaane maxamed maxamuud gacma dheer aa la yiraahdaa waa wasaarihii hore oo xilliga magacaabay cabdullaahi yuusuf waa daba wasaare noqday may waxaa madaxweyne ahay cali mahdi waxaan ra'iisul wasaare ahay kama hadlay xilli dambe oo ra'iisul wasaare loo magacaabay oo soco waay xilli uu soco waay maxamed gacma dheer hadda laftii uu noolyahay sax ra'iisul wasaare ku meel gaar hadda ka soo mar sax bravo waa fahmay marka afartaas soo dilay ayay marka tan sheekadan kala noqdo marka qisadan ka ku dhacday marka noo dhameystir qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo saxay lacag yar oo ninkan dhakhtar ku tagay boqolaal ma ahayd mise milyan wax saas ahayd cali baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta qasnaji cali baay uu tagaaliday ka qaado lacagtan cali baay uu yimid cali baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaanaa soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceeda isii inta kuu soo hartan oo dhaqaalaan waa ku siinayaa laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaasuu yidhi maanigaa saas ugu leedahay wuu carray iriduu tegey iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay laba wiilo oo qoryo watan ay ka soo daba carareen jaranjartuu soo fuulay cali baay wuxuu ku jira xafiiska iridda waxaa taagan nin la yidhaahdo cabdiqaadir cali hiid allah yaraxmo marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabba inuu qoriga shaqeynay in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay taasho xabadii barowada ahayd intuusan cirka u ridin ayuu shubki ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacday cabdiqaadir goobtii ku dhintay allah yaraxmo cabdiqaadir waa qofkii shanaad uu dilaayo ha cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falkanaxay wuu cararay meesha qaybta dambe cabdiqaadir waa xawaale suk waa isla fahamsanaa cabdiqaadir waa xawaale kuwan kale waxay lahayn dad oo beelahoodu macnaha daaladkii qaxay qaybo ka mida iyo dad uu ku maxamed saalxina iyo intaas ay yar shaqaale ahaayeen marka laakiin tan wiilkan waa wiil uu ama waaso ama cabsigeli uu islahaa laakiin ay xabadda ku fakatay marka xawaaladu noqday ma sii jooga haddana kuwii hore waa sii jooga oo aragnay marka ninkan xawaalada markuu dilay maxaa dhacay marka uu ninkan dilay allah yaraxmo isla markaas waxaa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa cumar xaashi allah yaraxmo inaa maqashin kale waa sax cumar xaashi meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogana waxay ahaayeen beesha uu ka soo jeedo cabdiqaadir cali hiid isla markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshay soo galeen waa garta xawaalihii waa xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo hub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxaa la harqiyey qoladii uu taakay la jooga meesha ayaga dhan waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidana timid oo familkii cabdiqaadir cali hiid allah yaraxmo waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakay marka wasaaraddu ka dhex baxay madaxtooyadu galay isla markiiba intuu qoriga tuuray marka madaxtooyada xilligaas Salemaanka dhinaca keesta madaxtooyada markaas sacad hayst ma sacada joogay laakiin ciidamadu dhex galay markaasuu war aniga reerkaasaan ahay xawaale ay dili rabo hal ay badbaadis ma fahmo waa gartay bas meeshii ku hayeen xawaalihii dhalinyaro meeshii joogtay oo qoryo wadatay oo ka soo oo taakay la socotay ay wixii ku arurseen gawaarida waxay dhaheen iidda kaligiis lama aasayo nimankan lala aasaya waa gartay hurwaayaan geysanaynaa hotel garguurtaan geysanaynaa marka raggana lala aasaya iidle midka way qaateen raggana gacnahay ka xirteen baabuurkii ku qaadeen waa gartay
cumar xaashi allah raxme iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camal ay soo sii daayeen ee dheheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabna ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa garta nimanka waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqi taake marka dibdib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaadlihii waxay sameeyeen ciidamadii USC meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baawuri soo dhigteen waxay dheheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa garta waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraahdo inta ilaalo ka naqana qof u diidaysa male meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tagay Kenya markuu orod ku tagay isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii malaha process ciyaarkeeda kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamtay Canada adigu wadada Mareykanka ma Canada meesha hata xilligaas marka uu galay Mareykanka kadib ma Canada galay kadib markaan ogaatay saasi ku ogaatay laftaada Cabdiraan xilligaas dad yaraayeen saad ku ogaatay inuu taakay yahay xaalad bal si fiican ugu sharax masa saad ku ogaatay bal arinta ogaansho oo noocay markuu hadda social media soo galay mase social media markuu soo galaa social media markuu soo galay ninkan waa aqaan wajigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waa aqaan waa asagii wali wax iska bedelay